وعن daawadayaal waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud bartamihii bishii la soo dhaafay ee May sanadkan 2018 waxa soo ifbaxay khilaafyo kala duwan oo u dhaxeeya madaxda ugu sareysa dawlad goboleedka Galmudug sida madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka oo isku dhinac ah khilaafyadaasi waxa ay sababeen in madaxda ugu sareysay maamul goboleedka Galmudug ay ku kala shaqeeyaan magaalooyinka Galmudug taasi oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka muujiyeen dareenno kala duwan oo la xiriir arrintaasi bulshada rayidka ah ee ku nool Cadaado ayaan ra'yigooda wax ka weydiinay siday u arkaan arrimahan ku saabsan siyaasadda Galmudug ka jira hadeer mushkilada weyn waxa weeye mid waa mid dabiici ah dadka deegaankan degan ay yihiin dadkii Soomaaliya khilaafku ka bilowday oo sababta keentay in Soomaaliya kala go'go'do tuhun laga qabay ahayd in ummadani labada gacnoodna ku cunta qayladan yihiin mid waa midka dabiiciga ah oo islaayahay way soo baxday arrintii meeshii la isugu soo soocay way isgaranayaan dadka halkan degan la yiri gaar u baxa oo naga dhinac baxa waxaad muuqata inaysan diyaar u ahayn inay xalistaan arrimahooda waa qodobku waxa weeye khilaafka hadda Galmudug ka jira ma aha khilaaf hadda taagan ee waa mid ku salaysan 2020 ma aha khilaaf hadda dhibaato taagan oo jirta lama arkay waxa dhibka ugu daran yahay siyaasiyiinta Galmudug ka soo jeeda ama Galmudug hadda xilka u haysa ama kuwa isla aad biri qabatiin dhamaantood waxa isku hayaan inta badan nuxurku wuxuu yahay haygu goyn iyo ha ii soo dhaweyn 2020 waxaan rabaa inaan noqdo xilka qaranka la qaybsan doona inaan ku weyn fursadaas imaan doonto inaan ka sii faa'iideysto ugu dambeyntii arrinta ku saabsan hadda halkan aan joognay Cadaado iyo barnaamijka quseeya waxa jira waxaan aaminsanahay inay tahay culno ku dhac tuugana ku ciidamiday waxaan aaminsanahay in deegaankan lagu xadgudbay xuquuqdiisa oo leeyahay ay leeyihiin la siiyo in la siiyan ay sax tahay laakiin dadka hadda u doonayo qayliyo dagaalamayahu inay yihiin oohinta orga ka weyn arrintood inay tahay haddaan wax yar ka iraahdo khilaafkan maanta Galmudug dhinacyada madaxda sare hareeyay qolana Dhuusamareeb ay joogto qolana ay Cadaado joogto runtii aragtidayda waxaan qabaa khilaafkaas waxa saldhig u ah dan gaar ah waxa saldhig u ah sadbursi waxa saldhig u ah iyo kooxaysi waan aaminsanahay ayadoon laga bixin waxyaabaha noocaas oo kale ah inuu khilaafkan soo noqonaynin markii si loo fiiriyo dawladda Galmudug waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay xildhibaano waxay leedahay ku-xigeen in ay ishaleeli waayaan ay kala socdaan maanta waxyaabaha saldhigga u ah wax kale ma aha waxa weeyaan arrinta Galmudug shakhsiga looga dambeeyo hal qof looga dambeeyo anu waxaan leeyahay madaxweyne shakhsi sababtoo ah madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay bulshadiisa magacayga Qadri Ibrahim waaye hadii aan ka hadlo ra'yigayga waxa la yiri quraankii al-Baqara al-Fahmara ka qalloocda al-Baqara kama tooso waxa hadii ay marka hore ay ku bilowdaan qaloocaas ay ku dhamaadaan waxaan qabaa aniga ma aragtay waxa dhacay qalad markii hore qaladkii markii hore dhacay ayaan hadda wali ay saameyntiisii ay taagan tahay maamul goboleedka Galmudug markii la tagay magaala madaxda Dhuusamareeb ayaa waxa dhacday sidii habkii wax loo maamulay ayaa xumayd oo qaldanayd taas oo aan u sababaynayo odayaashii lahaa inay ergooyinka soo xulaan oo hawlahoodii loo daba maray oo aan loo xornimo siin oo aysan xildhibaanadii soo xulin dadkii xulidooda iska lahaa iyo maamulkooda iyo madaxtinimadooda oo xildhibaanka loo keenay nin aan asagu soo xulan ma aaminayo xildhibaanna kama dhiganayo oo maasan tahay anigoo ah magacayga Faad Umar Maxamed hada ku nool hada tan degmada Cadaado hadii aan u gudbo khilaafka Galmudug runaantii wuxuu ku saacaday xil aan loo baahnayn xil loo baahan yahay horumar nabad ay xasilooni iyo isku duubni deegaanada Galmudug iyo dhamaan bulshada reer Galmudug runaantii waxaan dhihi karaa ma taqaanaa nasiib darro weyn oo ku saacaday xil aan loo baahnayn aan dhihi karaa sababtoo ah maamulkan Galmudug waa maamul curdina waa maamul dhismiisi bilowga ilaa hadartan ka bixi la khilaaf maanta waxa la doonayaa ma taqaanaa in hore loo socdo in ma taqaanaa ay sheeg horumar iyo ma taqaanaa ay sheeg nabad iyo xasilooni laga shaqeeyo waxa looga bixi karaa qaladka hadaan wax yar iyo adoo raaliga aan gadaal u raaco Galmudug iyadoo madaxweyne loo doortay oo nabad ku jirta wax kastaba ha iska dhaceene ayaa madaxweynihii la riday markii la ridayna madaxweynihii dambe oo la saaray
wuxuu sameeyey asagoon wadatashi ka samaynin bulshadii reer galmudug 11 beeleeda galmudug dooratay ayuu kaligiis iska tagay Jabuuti markuu Jabuuti tagayna wuxuu la soo laabtay asagoo xambaarsan urur markii hore diiday galmudug oo yiri ma soo galayo oo banaanka ka istaagay isla markaasna galmudug markii la dhisay ma diidanin yacni beelaha galmudug wixii wax tirsanaya laakiin waxaan diidana anaga sidoo ururuna soo galo بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسالم محمد أحمد كمده بالشدة رعاده هذا أرتدي كديبته خلاف قلمدو خلاف كده وصار النقضي ما هن مركو كبده خلاف كدعو بالشدة قلمدو نحل كان أمم بهنو خلاف إسقابسي خلاف إسقابسي كان وحكي أنا وحي لوجو شيء أو تقيبسي قلمدو كل شيء ده قلمدو ماشي لوجو يسوي عداده wixii lagu heshiiyey maqaamkii lagu heshiiyey oo qaybsigii iyo beelaha deegaanka sidoo qaybsan lahaayeen awooddaasna waxa moodaa in lagu takrafalay oo sidii u habooneed wada aan la marsiiyey qaarna jooga Dhuusamareeb qaarna jooga Cadaado maamulka galmudug muddo ayuu kala qomnaa oo Cadaado iyo uu ka shaqeynayay ilaa ya gaalkacyo haddana waa la isku daray Dhuusamareeb buu gaaray ugu Dhuusamareeb gaaray ayaa waxa timid haddana cabasho waxa cabtay deegaankan Cadaadood dad ka soo jeeda cabtay waxay ka cabteen maamulka inay ku dulman yihiin maamulka inay baatal ilaado waxay ku rabeen iyo qaybtii wixii 4.5 lagu qaybshay aysan lahayn xasan maxamed ismaan Somali Cable TV magaalada Cadaado